Bismillahirrahmanirrahim. Qodobada bandhiga ku daawa doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Goodluck amray in la soo qabto dadkii ka dambeeyay dilka nabadoonka xilli xalay nabadoon aan lagu dilay Beledweyne. Dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay weerar ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Mareykanka oo xayiraad ku soo rogay madax iyo siyaasiyiin Soomaali ah. Doorasho kuraas ka mid ah golaha shacabka oo maanta lagu wado inay ka dhacdo Braawe. qodobadaasi wixii nagu soo kordhay ayaad ku daawa doontaa. Fadlan like noo saar, noo sii share gareys, subscribe na YouTube-kana ka ilaawin. aynu ku bilaawno. Kooxo hubeysan ayaa fiidnimadii xalay xaafadda Bunduweyn ee magaalada Beledweyne xarun goboleedka Hirshabelle ku dileen nabadoon aan ka ahaa gobolkaasi laguna magacaabi jiray Cabdi Xuseen Colow, asigoo u dhintay rasaas badan oo lagu furay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Goodluck ayaa ka tacsiiyay geeridii ku timid Allah u naxariistay nabadoon Cabdi Xuseen Colow oo ka mid ahaa nabadoonnada ugu caansanaa ee Hirshabelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Madaxweyne Cali Goodluck ayaa wuxuu si gaar ah tacsi ugu diray qoyska, ehelada iyo qaraabada uu ka baxay nabadoon Cabdi Xuseen, waxaana madaxweynaha Alle ugu bariyay inuu naxariista janno ka waraabiyo marxuumka. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dable hubeysan oo xalay weerar sababay dhimasho iyo dhaawac ka geystay gudaha masjidka ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Goobjoogeyaal ayaa waxa ay ku warmeen in weerarka uu ka dhacay masjidka Raqayle degmada Afgooye xilli lagu jiray salaada cishaa, isla markaana waxaa goobta durba iska baxsaday raggii ka dambeeyay falkaasi. Inta la xaqiijiyay, hal qof ayaa ku geeriyooday weerarka halka 3 qofood oo kale ay dhaawac soo gaareen, waxaana la sheegay in qofka dhintay la toogtay xilli la wada sujuudsanaa oo lagu jiray salaada cishaa. Dadka ku dhaawacmay oo soo qaaday dhanka magaalada Muqdisho la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala caasimadda si xaaladooda caafimaad lagu dabiibo, waxaana sidaasi u sheegay warbaahinta qof ku sugan Afgooye. Ciidanka dowladda federaalka kuwa maamulka degmada ayaa xalay ilaa iyo saaka wada howlgal lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyay weerarka khasaaraha dhaliyay ee ka dhacay masjid Raqayle ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.